أنا جعلي جبكي كذا شيء كيني هذا أظن هذا غير مدق باوت هاي ما بالورت نيكاس نفشري هالمرة ما كان أما يودي النشاط يديمبل أقول صعطاء نينكي ديسي هي سودة سونا صار شو تعال عبد الله تعال كي عبت وعلى الله سود وين هي تعال كي عبت وناق عدانا على هذا كور بو شو والعبد واصل لعبتي السوق واك عبدي وسو فكري dhibay haysta ma fikirin war dhibay haysta ma fikirayo balaayo waxba ay soo galayeen dadkii waa wada dacwo qaar baa hawada lagu cunaya ee barraale ahaada marka dacwad bay soo gaadhay marka niyahow aniga saaxiibow ayuubow wax waan jeclaaday waana la jeclaaday inkastoo badan yihiin dadka aniga jeclaada kaygu iska yar xadidaya marka kuma guuleysan saaxiibow aniga beema ku sheegayo gabadhan odayga aabaheeda igu adkeey oday iska cunsur u ahaa صدق اكو فوقاني اي oday iska cunsur u ahaa laakiin hadda wax lagaga maarmo waa la helay ma fahamtay هي marka ayuu kaasa waxyaabaha niyo geela iyo roon waxa jacayl sida caldaanta wax ka harna waa qisadee ha iyo ma meesha wax ka gaadgaadina niyo ayuuba meesha iga daaw geel wax iga weydiiyo looda ما يا عبد يقدر صو تاريخه dhigtada maarta hore laga soo tago difeetana ma yeesho dhibaatana kuma yeesho waxna kuma isma ogta waxa soo maray ragga xaasaska oo ka mid dhaliyay waxa laga weydiiyay marka hore niyo ana hay wal ayuuba mawduuca igu furan iga wareeji walaal meesha waxban ka gaadgaadhay hadda baa fahamta cabdidaato hadda baa fahamta yaa lagu gaadi saaxiib warjacaylka reer war waxa ma jeclaan gabadha geeli waxa iga weydiiyay jabka iyo waxa soo maray geelna kaama rabay ninka abukar cawaara ka sheekeynaya jacaylka reer mudug cadaanka galay shiina culeyba ahlu romantiga because ana aqaano close friendkiisa ay weydiiya hada shiina waa ursan galiye reerkiisa xataa ma yaqaana jacayl caam shiina ka sheekay caaw samiro kiina dhexmarayo inuu ka fashilmay ma ka hadlo يشين كي كلو يجا شيكين سمير أبوك عوالة وحله بلا عامس ورايا نعيمة سمير ما سكلا دعيسن سوق ودعيسن جعلكيسا wuxuu weegiyaa duqduq ani ma doonahayo shiina culay waa nin yaro chaw كوينين دعيسن سوق ابو waa qarxise dhageysta okay khibradan ila shar gareynayna shukaansigii waagii hore iyo midka hadda farqiyada u dhaxeeya gabaray hadii aad wiil ka hesho calaamadaha aad bixisaa maxay tahay wiilow hadii aad gabar ka hesho sideebaad u approach garaysaa bal xogaha dhaafsada annaguna aan experience-geeda la wadaagno ilmaha riyaal aan ku horeey halka go ahead ku soco hadda koor waxa dhacday saki bin xaaji halka ku jira maarta bamaalo boos soo qoray كوينين دعيسن سوق ولا لا هيا بايو كدعيسن هوس boostu maandhow saki bin xaaji soo qoray waxa ku jiray shukaansiga hore iyo shukaansiga dambe waxa u dhaxeeya farqi weyn dhalinyarada markaa joogto ku hadlayay wuxuu yiri caawa dhan buu kala hadlayaa bahalkii 3 saac asagoo la hadlayay buu soo sawirayaa status soo dhigayaa wuxuu leeyahay baby 3 saac 4 saac la hadlayay ama 6 saac habar qaba muxuu u sheegayay bi annaguna waxaan soo marnay ayada konta sentii la baadi gobeyshan 30 sentii salaam alaykum salaam loo kala dhameeyo loo kala dhaabo marka waxa ay soo dhacday hadda koor qasay u dhacday waxa ay soo dhacday xilliyada kamid ah oo warqad la isu diri jiray warqadii waa garanaysaa hadda meeshan dad weyn baa ku jira inkastoo gabdhaha wallahi waan qoray warqadaas ku soo laakiin rag weyn baa ku jira abukar iyo rag qori jiray rag waxa ku jira hadii la kuriyo ayadoo harag qori jiray harag waraaqada kuma jiro abukar cawaalo waa asaga uu ku jiro laakiin ani kuma jiro samir jilcu ahaan hawal baan samir kaasbi ku jira sugaadu wuxuu ku jira markaa ma sheegay samir jilcu ma dadka xabsiga aasay baa jacayl ka sugay cabdidaal in adeerkii adaaba ogba warhadalka ma idaysaa waxa dhacday marka warqad baan qoray tuulo aan qoray tuulo naad tuulo jida tuuladii warqadii jawaab baa la waayay waxa mostly marka inaad taar tagtid telefoon ma jiro taarkii marka waxa muhiim ah inaad ayadii magaceeda saddexan
iyo qabiilkeedii iyo tuulada meesha ka noosha aad yeerisid oo dadku qoli waa garanaysaa qofku taarwadahaasi mid buu warqad loo sii dhiiyo mid baa warqadda qaada hooyadeed iyo qabiilkeedu marka ka bilaabaya qofka qabiilkiisa ku qoran meesha qabiilkaas wuxuu dhahayaa ree hebel waa kuwe xagee degan yihiin halkaasaa la leeyahay habartii ka daldhacayaan odaygu ka daldhacayaan markaasuu leeyahay heblaayaa la raba ayadii baa la soo istaajinaya hadhow meesha taarku waa meesha afka hayso waa la garanaya halow baa la leeyahay markaasaa codku shuuqalaya markaasuu leeyahay laba hal wareeg markaasuu wareegaya alba abshir ii soo qabto walaalayaalo thank you wax badan kama sii hadli kadib marka adiga yaxyax meesha waa la dhooban yahay kuwa lacag dul taagan lacag la xawilaya waa taar meesha marka de xabiibina waa garanaysaan xilliga qof gaal ah xabiib dadka dhigi jiray gaal xabiibi iyo baby iyo lama aqoon qofkaas kaadir buu ahaa wasakh buu ahaa dhaqanku dhumay waxaa dhahaysaa walaalle seelada walaalle fariintii ma ku soo gaadhay hadday tiraahdo maya waayaa dhahaysaa fariin kale inaad dhid wey meesha waxa ka sheegi kadib sekiya waxaan ku yiri marka warkota ka side ninka soo gaarayo heerka ma madha madaxu inta gacan saaro caaba marka Abuukar waa garanayaa siina asagu laftigiisu waa ragii haragga jaacad weeraan iska bada warkiisa gabdhaha alteso asaguna allow naxaji meesha aad wax dhalinyarada ba sheegtay hadda seki baan u jeedaayo dhalinyarada nabiil iyo shukaansiga social media cabdidaantana dabagur buu soo gaaray dabagur waa raggii uu gabdhaha ku kicin jiray wallahi been ku sheegay ayuu adoo hadalka ku wato dad baan siinayaa aniga sheekada iga qabsatay ul aan habeen gabar ku toosinay waan idinka sheekan doonaa qof kale ku hormaro intaan baastan cunaya aan karsaday walaalo kabtan ayuu meeshan shiinana waa uga jeedaa guud baan galay qof kale la siiyo Yacquub Siyaad walaalo looma furin qofna lama soo saarayo Yacquub Siyaad wala telefoon suusan buu wataa iPhone CD يا قفنا من السارة أنا ده هبقى ولا سكوب بدنيا سينا سميرة يعقوب تليفون آيفون محلي كرا and please hablaha sharafta badan ee qiimaha badan ee meesha saaran dad waaweyn ba meesha noo saaran aanu istixtiraamno qof la soo saarayo qof yaa la soo saarin maanta lagu ma jiri karo please wixii problem qaban telefoon baan kula hadlay noo wada mawduuca shiine maxaa dhahda abo telefoon Samsung marka waa ina Yacquub Siyaad u qaarana iPhone loo gadaa kabtan oo u sheeg Samiiro Jilcu wuxuu ku tiri dheh waa lagu maya telefoon iPhone telefoon isugu matay kareen aniga qaaraha la aadin ka telefoon Siyaad aniga u baahan tahay ama ka am xabsa sheegin Samiiro hayda qaaraan kun maxabsi ugu tiri anigu منصر كره لو سو منصر عبد وحيد يدي markii baas warqadii gashay mal aamusa saddex maalmood aan ku qaado ilma reerkayga ka dhaqday oo ka tagay oday waan hay Abuukar shakadii xaramkan adiga nagu dhacdana ka sheekeynaa shakadii xajeesta kaxayleba kaas baa ka sheekeynaysa sheekooyin badan baa jira maama maariya jirta sheekh cabdibaraal u jooga Abuukar cali oo jooga sheekooyinku waa badan laakiin marka laynu suuraysanayna anigu waan idinka tegayaa khayr badan baan idiin rajeynaya insha allah انت نيدا waxaa moodaa in la isku aamusay horta cabdilaantu may maqashaa aad baan ku maqlaa intaan mashquulsanaa yaro baastaan cunaya la iga dhamaysanin may horta qolka adaa furay maadee kaa gaarto laakiinse waxaa moodaa qolku meeshuu ka dhutinayo caaw dhan inay tahay qof meega qaybiya oo barnaamijka mar walba dadka u dhexeeya oo daadihiya oo
fikradihii la keenay dadka weedaariya oo meegu mar walba uusan dadku inaysan aamusaan oo isu soo fiiriyaan dadka ka ilaaliya meedan u samayn waa clubhouse waa iska cusub yaasaan jeclahay as dadka bigo life iyo meelahaas gurubyada ka soo jabhadeeyay oo reer masaajer ahaan jiray way dareemi karaan barnaamijka qof udub dhaxaada oo dhextaala oo dadka mar walba hadalka wareejiya oo dadka inay isfiirfiiriyaan ka ilaaliya horta waa laga maarmaan waa qodob صح qodob kale wuxuu yahay Captain Ayub daay barnaamijkiisa waa dhageysanayay anshax barnaamijka ilaalinaya in la iska garab hadlo barnaamijkii uu lahaa dhalinyaranimada uu dhahay warqadaha uu ka sheegay mataqaana uu sharaxay horta wadanku maasha Allah dad mataqaana influencers ah oo aad bulshada ugu xiran tahay oo maanta hadii la isku geeyo subscribe-kooda iyo followers-kooda iyo 2 milyan gaarayso ilaa 10 milyan ay gaarayso hadii la isku dardaraayo bulshadu waa wax bedeli kara oo mataqaana dadkooda hormuud ku ah wax jihay kare dadka influencers-ka ka mid yihiin arintan marka haddaan u soo noqdo arrimaha bulshada aan u badano dhanka siyaasadda watuu Jaan Cabdibraan nooga deeriyo yirnay dhanka labadii meel isku timaadaba faataxada kadib isa siyaasad isweydiinay xogaa inaga durjiya marka aad baan fikirkaas u soo dhaweynaya ayadu naftirkeeduna dhalinyaradii tiri bal siyaasadda aan falanqeyno ayadu naftirkeeduna fikir mataqaana saa u sii fog maaha sababtoo ah dadka aayahoodii masiirkooda mar walba indhaha inay ku hayaan walwal ay ku hayso iyadoo wax iska qurux badan laakiin siyaasadii maanta waxay tahay waxaan waxba laga qaban karin oo sababtoo ah wax anaga aan saamayn ku yeelan karayna maaha marka arrimaha bulshada u soo laabto waxa moodaa wadanka markuu burburay oo wadankii mataqaana uu dib u dhacay dib u dhaca kuma imaan kaliya dhanka dhismaha dhaqaalaha siyaasadda kuma imaanay macaa dhalinyaradii uu saameeyay boostiga inaan qor wixii u kalifay ama arinta inaan ka soo hadlo xataa TikTok waa kaga soo hadlay muuqaal ahaan waa u geliyay marka arintaas wixii ugu dhaliyaan marka waa inaan idin la wadaago idin qoraaliya wax yar waxa moodaa wadankii markuu burburay dhanka dhaqaalaha iyo dhismaha iyo dawladda iyo siyaasadda kama burburin macaa dhalinyaradu burbur ku yimid anaga waxa naga la jeesanaa dadkii warqadaha intii qoraan ama ninkii intuu 5 kiiloomitir ama 10 kiiloomitir habeenkii fogeeyo oo gabar u tago oo laba qodob kala soo hadlo gabadhaas ku guursan jiray oo calafkiisa ku qaadi jiray oo ku awlaad dhali jiray awliyaashina waa dad naga adag oo naga howl karsan bay ahaayeen hal step hoos loo soo dhacay oo waxa moodaa in baashi warqada ay timid iyo howl fududays step kale hoos loo soo dhacay waxay anaga waqtigeena marka lacag baa lagu shuban jiray 5 senti konton senti waxa laga yaabaa kontonka senti lacagta break lagu soo siiyay inaad jeebka gashatid hadhow telefoon aan ku shubatid inta adoo raadinaya gabdhahan quruxda badan ee meesha ka saaran mid kamid ah waqtigaas oo hadashaan oo iyadana telefoon yar qoslaya ama mataqaana telefoonadii waagaas la xiiseen jiray ay haysata ina habeenkaas 4 saac oo habeenimo marka uu qadku 4 saac markii la gaaro xogaha lacag aad uga bixi jiray cidii ka soo jabaadaysa garanaysa in mataqaana aad 10 daqiiqo ama 15 daqiiqo arintaada ku dhamaysanaysid ma oo laga yaabo gabadha habeenkeeda kale ay socdaan wixii adduunyada saas soo ahaato oo raggu ku soo jabaadayaan oo raggu ku calaf qaadaan oo rag ku awlaad dhalaan adduunyada isbedeshay tiknoolajiyada timid guriyihii baa khad wada gashtay qofku waxa laga yaabaa xataa wadanka jooga xirmo 25 intuu ku xirto ama xirmo ku tasitiya inuu maalinkaas oo dhan ku isticmaali karo messenger uu muddo saacadaha ku hadli karo okay haddana waxa moodaa guurkii inuu markii ay arintaas tiknoolajiyada timid guurkii inuu hoos u sii dhacayo wixii marka 20 saacadood ba screenshot laga soo qaadaya oo la soo saaranaya ilaahayga ma ka fogeeyo noolahaygii cadow jibiso oo qalbi kaaba magacayaasa loo taxayaa 20 saacadood 22 saacadood baa loo hadlaya 22 saacadood ama 20 saacadood ama 10 saacadood kaba dhigoo dad hadlay waxaan u malaynayaa qodobada la isku sheegay iyo wixii laga wada hadlay iyo wixii laga falanqooday wax xataa aan qiyaas karaysaan dadkiina hadda waaweyn maaha ma fahamtay marka qodobadii mar walba waxay ku soo biishoonaysaa baasha wadanku dib u dhiciisu xataa shukaansiga baasha waa soo gashay 22 saacadood nin baa kor saarnaanay oo laga yaabaa muddo 3 sano inuu habeen kasta 22 saacadood kor saaran yahay misna uu single yahay oo uusan ka guur qaadin oo ka calaf qaadin inkastoo ay qoraal rabbi tahay marka arintaas waxa ku keenay marka farqiga u dhaxeeyay dhalinyaradii 2000 ilaa 2010 ilaa 2012 iska keen jabhadeeyay shukaansaday ku guursaday ku calaf qaaday iyo dhalinyarada reedna iska ablada farqiga u dhaxeeyo si u kala jaanis fiican yihiin isay u kala fursad fiican yihiin inna jeebkiisu intuu ka qado ku tismeel ku shubto qoftiisa ku weey jiray inna khadba uu jiro waxa laga yaabaa 10 saacadood ama 5 saacadood ama intuu doon la hadli karo marka burburka wadan ku yimid ilaahay nooga saaro dhalinyaradu hadii baysigaan loo dhismo mataqaana waxyaalo fara badan loo dhismo waxa laga yaabaa ninkan inta qodob uu ka hadli karo oo qoftaan uu kala hadli karo inuu qorsheysan u qodobeysan yihiin qodobada haduu kala hadlo inta wixii ka dambeeya la kala seexanayo ma fahanteen qurbaan hadii aan joogno kale waxa moodaa in qoraalka laga jiciya telefoonka oo dadku ay qoraalku wuxuu ku dhameystaan marka aad baa u maasantiin ayma bulshada inoo jeeyay Cabdi Dhaanto
qolka adaa hoggaanka u hayo qof meega u dhiib hadallada ha qaybiyo su'aalaha ha qaybiyo 100 su'aalood oo arrimaha bulshada jiro guurkiyo mataqaanaa furniinkii iyo guurkiyo furniinka bataa jiro guurka fanaaniinta mataqaanaa aad u soo badanayaa jiro furniinka fanaaniinta ka daba yimid baa jira khilaafyada mataqaanaa waxyaalo fara badan baa jiro arrimaha bulshada ay u baahan yihiin dadka miisaanka culus ee meeshan fadhiyo arrimahaas iyagoo ka faaloonaya shacabkana dhegeysanaya way u baahnaan lahaayeen waxaa laga yaabaa fikrado inaad bedeshid khilaafyada faraha badan ee dhalinyarada ku yimaado wax badan inaad bedeshaan markaa fikirkiina soo bandhigtaan marka cabdidhaanta qolka maadaama aan kugu marti kuu nahay qof meega u dhiib hadallada ha qaybiyo su'aalaha ha qaybiyo arrimaha bulshada su'aaladeena waa badan yihiin waana ka baxay zaki bin xaaji saaxiib aad baad u mahadsan tahay markii hore ku jirna dad baa mikrofoonka qaybinayay oo habeenadan dhanba barnaamijkaas waday shaqaaqa yar baa meesha ka yar dhaxday kole aanu aad ilaa hadda ma xasuusto laakiin waan baari doonaa dad badan baa hataa qolka asxaabteeda kamid ah ayaa qolka laftirkiisa laga barowgareeyey lagana remove gareeyey oon hataa qolalkan hadda aniga aan furaya aan soo dalban karin arrintaa baaritaankeeda ayaan wadaa mikrofoonka qaybintiisa iyo barnaamijkaas dadka hataa barnaamijka hadda aslo waxaanay meesha way ka maqan yihiin baafi iyo munasar iyo maxamed geedi iyo dad baa ku jira waxaan jeclaan lahaa inaa mikrofoonka u dhiibo ananas baa mikrofoonka noo wareejin doonta ayadaan u igmaday ana iga raalli ahaato waxaana rabaa inaan hal sheeko idinka sheekeeyo runtii habeen dhoweyto qol baan soo galay waxaa ku jirtay 18 gabdhood oo garoobaa ku jirtay meesha baan iska baranay xaaladiina ka warramaan ku markaan sheekaysanay waxaan ku walaalayaal 18 kiinaba maxaa garooba idinka dhigay yurub baanu joognaa maraykan baanu joognaa nimankii baanu dee biriqbiriq bay keeneen hawadaan ku cunay naa biriqbiriqdan waxaana sheegaysaa inta iska daysaan haddaba anigoo waxba ahayn baad warkan 2 saacadood meeshan iska daysaan waqtiga nimankiina aad maxaa dhahayay aad anaga meeshan hadda aad nagula joogtaan nimankiina maad siisaan maan ku idab darada intaad joojisaan marka maxaa dhahayay saasaan ku uri dhibaatooyinkan waxaa keenay social media dadkii waa la isku diri labadii qof oo jeclaato iska hesho balaa ka dhex shaqaynayso qoorta la isku gelinayaa sidaas darteed waxaan jeclaan lahaa in aad ananasan mikrofoonka u dhiibo dad waryaalo sharaf laa meesha ku jira ay ku soo dhaweysto qisadeedii gabadhii reer miyiga ahaa xilligii miyiga oo gabadhii anuu soo kicinay hooyadeeda ay igu soo toostay waan idiin hayaa oo qisadaas aan idinka sheekeyn doonaa qisa aan jeclaan doonaa in aad kulligiin ka wada heli doontaan wax yar muud baan galayaa mikrofoonka ha qaybisa ananas dan waxaan la dhahayay dadka aan siiyey aniga aan siiyey maxaa la dhahaa calaamadda oo xidigtaana aniga siiyey asxaabta kale waxaan ka rajeynayaa inay igu ixtiraamaan maadaama qofka aniga furay qofkii qof wax ka tabanaya hadday jirtana uunan si gaar personal attack ku samaynin uunan baroogaraynin qolkana uusan ka saarin meeshana uun ka dejinin fadlan taas waa codsi aniga maadaama dad waaweyn ay meesha ku jiraan marka mikrofoonka wareeji dadkan asxaabta soo wada qabo qisada ka sheekeeyaan waa baastaan una waan faraxlanayaa mid baan gelin annaas ku socon maqal ma jiraa aninaas in baxday way soo noqonaynaa umaleynaa ama la tuure ananas meesha wariyaala ku jira baafa iyo asxaabta kale hadda diiyaan muxuu ahaa cabdiyow adiga laftirkaagu soo dhawow haddaad nala sii joogayso welcome brother digtaa ku siinaynaa barnaamijka noo xiriiri ku soco waa mahadsan tahay ninka la dhahaya cabdidhaanto runtii muxuu ahaa zaki ayaa si fiican u faahfaahiyey waxa looga baahan yahay in groupkan looga discuss gareeyo oo muhiim ah oo ka mid ah arrimaha bulshada quseeya ee tirada badan haddoo kale waxaa ka dhawaajisay in uu qurbaha ku kordhayo kala taga ragga iyo dumarka isqaba saas ay tahayna ay ku badan yihiin haweenka single motherska ah oo dhibaatooyin badan qurbaha ku wajaha